السلام عليكم كنت معنا ونكسن مركز العالم كنت وقتان كسو دوادا موضوعا كوبان ka hadli doono waxa loo yaqaano genetically modified foods oo cuntooyinka inta badan lagu sameeyo dhalashooga marka wax laga bedelo qaabkooda. Halka waxaad ku aragtaa yaanyo ama tamaandho sidoo kale waxaad ku aragtaa yaanyo kale ama sidoo kale tamaandho. Tani cabirkeeda ama size-keedu waa wax yar. Tanna cabirkeeda ama size-keedu waa uu ka weyn yahay tan kale. Hannaankani waxa loo yaqaanaa genetically modified ama waxa loo yaqaanaa in lagu sameeyo beeraha ama dalagga ka soo baxa beeraha taasoo markaa la dedejinayo isla markaana la soo saarayo abuur ama sidoo kale dalag si markaa dadku ay u quutaan. Hase yeeshee waxaa dhinaca socda in si weyn looga digayo isticmaalka dalaggan ka soo baxa beeraha inkastoo caalamku uu si weyn u isticmaalo adeeggan loo yaqaano ama dalaggan ka soo baxa beeraha ee loo soo gaabiyo GMO. Follow me in social media. haddii aad u baahan tahay mawduucyo caafimaad ku saabsan cilmi baadhisyo iyo sidoo kale talooyin caafimaadka ku aadan fadlan booqo baraha aan ku leenahay baraha bulshada sida YouTube, Facebook iyo TikTok halkaas ku helayso mawduucyo dhammaystiran. Mahadsanid.